السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو waxaan wanaagsan daawadayaal waxaan rajaynayaa in fiicantii inta kadib maanta waxaan ka hadlaynaa kaba soo qaad nolosha in tahay Olympic game tartamo la ciyaarayo wareegii laga soo gudbay inay tahay wareega koobaad waxaa ciyaaraya saddex noole bini aadanka gorillaha iyo kanguruga waxayna ciyaarayaan ciyaar feer ah oo box ah labada xayawaan kee dooran leedahay kula tahay adiga maadaama bini aadanka tahay xayawaanka koobaad waxa laga yaabaa in aqligaada ku soo dhacay sida aniga mawduuca markaan diyaarnay igu soo dhacday inay tahay kanguru inaan ka bilowno kaba soo qaad kanguru inaad la tartamaysid feerna ciyaaraysaan waxa laga yaabaa inuu kugu muuqdo xayawaan kanguruga mid tabar yar laakiin adimaha dambe labada lugo gacmaha u eg marka laga taga darbada uu tuuri karo hadduu kugu dhufto waxa laga yaabaa inaad u dhimataba haddaan ku soo laabto gorillahana iska wada kasmo alfir hadduu kugu dhufto waxa laga yaabaa inaad soo baa iska daa inaad dhimato inay suuragal tahay waxaa laga yaabaa inaad wareegaasba aan ku hari lahayn ku darso wareegga labaad waxaa lagu tartamayaa orodka waxa loo yaqaan yaa kula tartamaya mataqaana adiga oo binaadankii ah waxa kula tartamaya haram cadka iyo waxa kula tartamaya hadii ay ku sameeyeen iyayda markaas haram cadku waxa lagu sheegaa cilmi baarisada sayniska waxay sheegaan 70 kilomitir saacad inuu jari karo waxa weeyna faafahin badan igama baahan kan ah iyayduna ma og tahay in markaas cilmi baarista ay sheegayso in 24 saacad uu ordo xitaa inuu soo daalin ma waxay kula tahay inaad ka soo bixi lahayd wareegaas wareegga xiga aan ku soo qadimo wareegga xiga waxaa lagu tartamayaa qaadista culeysyada bal maxaa la qaadayaa sharciga xeerka ciyaarta waxaa ka mid ah inaad qaadid culeyskaaga intuu la eg yahay oo lagu dhiftay 100 waa ku naxariisana maadaama aniga garsooraha ah aan dhaho culeyskaaga inuu yahay 50 kiilo waa ku naxariisana waa inaad ka sareysid culeyskaaga inuu ka badan yahay 50 kiilo lagu dhiftay 100 meeqa ku keenay waxay ku keenaysaa 500 oo kiilo bal qiyaas bini aadan haddaan nahay 500 oo kiilo ma qaadi karnaa su'aal jawaabteeda waa maya wareegga xiga waxaa lagu tartamayaa ciwaanka intaan ka gudbin ka hor horta waxaa kula tartamaya cayaanada yaryar ee injirta iyo quraanshooyinka iyo waxayna qaadi karaan lagu dhuftay 100 culeyska iyaga ay yihiin halka aan ka soo hadlay bini aadanka culeyska intuu qaadi karo kan xiga waxaan ku tartamaynaa waxa loo yaqaano aragga iyo dareenka waxaan lagula tartamaya annaga oo bini aadankii ah iyo guumeyska iyo gorgorka bal ka waran maxaan ka qaadi lahayn gorgorka waxaan weynayaa inaad fahamtaan sida awoodda uu leeyahay aragga inta kilomitir wax ka arki kara si wax u dareemo faahfaahin bay igama baahan ila tahay aan u imaado guumeyska ka war haddaan ku dhaho guumeyska wuxuu wax ku arkaa mugdiga bini aadanka ultraviolet wax la dhaho oo waxaa jirta usan waxba ka arkin tusaale ahaan annaga waxaan wax ku aragnaa iftiinka haddii mugdi dhaco waxba ma aragno indhaheenna waxba ma arkaan marka labadaas shimbirood mugdiga ay wax ku arki karaan meel fog ayna wax ka toogan karaan wax ka arki karaan indhahooda sida u samaysan yihiin systemka ultravioletkana waxbay ku arkaan bedelka bini aadanka uu daciif yahay usan mugdi yar hadduu dhaco aan waxba arkin indhaheenna kaanana inay tahay annaga inaan markaas indhoolna kale ay noqonayso wareegga xiga waxaa lagu tartamayaa dareenka maqalka iyo fahmidda sida ay u shaqeyso waxa loo yaqaano magnetic field-ga dhulka yaa kula tartamaya mataqaana waxaa kula tartamaya dad loo yaqaano gibiliga kow ama markaas xayawaano kale oo tiro badan way jiraan si wali geeli la dama aanan gaarin sidoo kale magnetic field-ga marka la dhaho iyo dareenka maqalka waxa ku soo dheer shaaga ma gaarin libax badeedka isu u dareema xataa electric shock danabka korontada xataa soo u dareema wali lama gaarin bal ka waran marka ciyaartaas ma kula tahay bini aadanka inuu ku soo bixi lahaa inuu guuleysan lahaa ma kula tahay su'aal jawaabteeda waa maya bini aadanku waa xayawaanka kaliya noolaha kaliya oo aan cijiin lahayn oo aan miciyo lahayn oo xoog leh oo wax ku dila dhogor lahayn oo aan baal lahayn oo duuli karin oo dunida ku nool oo sidoo kale si sharaf leh u nool ilaahay baa karaamay oo sharaf yeelay laakiin haddaan la tartano noolayaasha dhan ee adduunkan ku nool mid aan ka guuleysanayna ma jiro ka waran marka qofka ku dooda in markaasi jirin cadaab ama xisaab maalinta qiyaamo jazaa wal xisaab inaysan jirin maalinta qiyaamo qofka ku dooda ka waran arrintaas waxay cadaalad darro ku tahay noolayaasha dunida ku nool kuwooda ugu tabartayar kuwa weyn iska daa libax kama hadlin marodi kama hadlin waxas kama hadlin jeer kama hadlin nibiri kama hadlin dolphin kama hadlin waxas kama hadlin noolayaasha yaryar ee adiga ka awoodda badan ee ka fahanka badan ay cadaalad darro ku tahay because aqliga lagu sii garasho lagu sii waan lagu xisaabaya iyaga marka maadaama intaas awood ay lahaayeen haddana isan faham haysanin macquul ma markii aad lagu xisaabin iyaga la xisaabiyo markaas isas ay noolaadaan waa cadaalad darro marka aqliga ma sheegaayo ina maalinta qiyaamo la xisaabaynin adigoo tabar yar oo sidaas u liito ayaa wax walba lagu siiyay guriyaan dhisnaa dawayaan dhisnaa jidadaan samaysanay mataqaanaa sababta baabuurada u jiraan diyaaradaha u jiraan guryaha u jiraan maxaa yeelay waxay sheegayaan dhammaantood inaan tabar yarna laakiin waxa ilaahay uu nagu manaystay
qiimaha noogu yeelay maxaa waa fahamka garashada caqliga iyo markaasi sida aan u shaqeyno sida aan maskaxda ugu shaqeyno marka waxa laga rabaa hadda tahay bini aadan nool inaad fahamto caqliga qiimaha uu ku leeyahay inaad fahamto wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ni'am badan ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala annagoo si tabaryar ayaana looga dhigay markaasi khalifatan fil ard ayna tahay inaan ka mahadcelino wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh